السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتبعي السلام ورعليال. waxaa igala socotaa waa channelkayga YouTube-ka Yaxya Live. maanta waxaan rabaa inaan idin faa'iido aad u muhiim ah qaasatan dadka Jarmalka jooga. dadka Jarmalka jooga waa dad aad iyo aad guuritaan badan, qaasatan Soomaalida la hadlaya. dad waxa weeyaan magaalo to magaalo, gobol to gobol u guura. haddaba antaraaga halkaan kuu soo dhigay haddii aad job center lacag ka qaadato socialka iyo agantuwa saddexdaba waxaad xaq u leedahay in guuritaanka lacagtii kugu baxaysa laga bixiyo. waa video aad iyo aad muhiim ah. videogani aadna uu ku qoseeyaa haddaba suu kaaga bixinaya ruuxantii guuritaanku hadduu magaalo to magaalo ama gobol to gobol yahay lacag aad iyo aad u badan baa kaaga bixi karta inay lacag 1000 euro ku dhawaad kaaga baxdo bes raritaankii oo kale salaano kale dad waxaa jira degan guryaha xagga ugu sarreeya badanaa Soomaalidu ama dadkaan shaqeyn waxaa la dishaa guryaha sare. guryaha sare way ka yara lacag jaban yihiin guryaha hoose, kadibna alaaba culusna badanaa Soomaalidu way dhigtaan qaaliya. haddaba alaabaha culus ma awoodid adigu inaad alaabta soo qaado jaranjarta la soo raacdo. haddaba waxaa jirta shirkadaha raritaanku inay badanaa ay wataan qaar waxaa jira wata macalwiishkii gaarigii weyn alaabta lagu qaadiyay sidoo kalena dadkii ka shaqeynaya alaabta qaadiyay oo kale. saddexdaasiba way ka qaalisan yihiin alaabta caadiga marka la rarayo. wiishka tusaale ahaan oo kale markuu kuu shaqeynayo 200 euro ku shaqeynaya. waa wiishkii la qaadayo alaabta kasoo qaadaya guriga sare xagga hoose keeniyay. sidoo kale gaariguna sidoo kale dadka shaqeynayana saacad bay kugu shaqeynaya. mana awoodid adigu inaad bixisid lacagta intaa leeg. marka muhiimadu waxa weeyaan inaad sameysid inuu qofku uu antaraaga sameeyo uu ka sameeyo job centerka socialka agantu kulba ku yahay. markuu sameeyay haddaba waxaa jira su'aalo yar oo la isweydiiyo. salaano kale sababta antaraaga u sameynaysa maxay tahay? salaano kale hadduu jiro haddii aad isku dhacsantiin oo kale qofka guriga kaa kirayo kale haddii uu jiro siyaabo guriga salaano kale shimil ama inuu guriga ku dhashay cayayaan oo kale aad uga baxayso siyaabo salaano kale guriga inuu kugu yar yahay oo kale. guriga inuu kugu yar yahay in adigu aad tahay inaad salaan hooyo uur la tahay in caafimaad salaano kale ilmuhu inay guriga ku xanuunsadaan oo kale. guriga in markaste dhibaato kaaga timaado sida salaano kale jaarka oo dhibaataysan oo kale. guriga markaste in ninka guriga kireeluhu kale guriga kaa kireeyo kale inuu lacag dhibal kugu soo dalaco. salaano sidoo kale neeban kostiga oo kale haysunku inuu shaqeynayno oo kale. adigu inaad sheegto hal siyaab ama hal reason oo sababta guriga u guurayso runaantii kadibna si automatic ayaa laga aqbalaya. waxyaalo waxaa jira oo marka su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay dawladdu markay bixiso alaab gaariga lagu guuray maxay kala bixinaysaa maxay kala ka caawinaysaa waxa kale ka caawinaysaa walaal oo aad iyo aad muhiim ah. waxa la yiraahdo waxa la jira unsu karton. salaano kale alaabta marka la rarayo waxaa jira kartoomo lagu guuro oo alaabta lagu qaado. dawladdu way ka bixinaysaa taas oo kale. kartoomadaas waxa lagu iibiyaa badanaa dukaamada dhismaha sida Bowmark oo kale. waa tagaysaa kartoomada soo iibsanaysaa warqad aad ku soo iibisay waxaad u diraysaa job centerka socialka agantuwa kolbiki aad tahay. runtii aad iyo aad muhiim u tahay. waxaa jira aniguna aan arkay dad badan oo Soomaaliyeed oo runtii gobol to gobol u guuraya oo lacag 200 bixinaya. walaalo waa khalad qofka haddii uu lacag dawladda ka qaato inuu lacag jeebkiisa ka bixiyo dheeraada waa khalad. suuga waad laga bixinayaa hadda kadib saa la soco. videogan aad iyo aad muhiim ugu yahay maxaa dad badan oo Soomaaliyeed waxaa jira information-ka aan haynin. haddii uu follow videogan ku soo gaaro ama aad daawato la wadaag qof kasta oo Jarmalka jooga si uu maanta kadib antaraagan u xareysto. antaraagan job center laga soo qaataa socialka agantuwa kolba ka tahay oo soo qaanaysa oo buuxinaysa waa diraysaa. aad iyo aad jawaabtana lagu soo diray runtii waxaa laga yaabaa 1000 euro ood ku bixin lahayd guuritaan wiish shaqaale lacag ku siin lahayd kartoon aad ku siibin lahayd inuu ku baaqdo aad markaad magaalada kala tagto aad alaab ku iibsan lahayd. runtii waa chance teeda kalena dhibka jiro waxa weeyaan Soomaalidu badanaa alaabo culus alaabo qaali ah sidina alaabaha qaaliga haddaad tiraahdo jarjarta lama ayaa runtii aad iyo aad buu kaaga jabaya. waxaa ku fiican wiishka inaad soo kiraysato si alaabtii oo sida ayaa laga soo saaraya gurigii waxaa la gelinayaa gaarigii kadib marka uu tago gurigiina sidoo kale gaarigii uu ka saaray wiishkii wuxuu gelinayaa guriga daaqad ka soo gelinaya ama balkoonka kolba kay tahay. runtii waa chance aad wanaagsan walaal lacag yar
oo aad ii sheeg muxuu ahaa kaa qasaarta waxaa ka daran alaabo 1,000 2,000 ku taalo kaa jabta badana Soomaaliduna kuma baraarugsanin fadlan haddii aad tahay qof guuraya oo dowladda lacag ka qaata maanta kadib Chinese-kana iska qasaareen fadlan sida ugu dhaqsiyaa badan xarayso muxuu ahaa lacagta marka ku soo dhacdana hawlaha ku qabso hadduu jiro qof walaalkaayo oo guurayna la wadaag fiidiyogan xaastimada wanaagsana fiidiyoga dug soo gaar like gare channel-kana subscribe-kiina dee markasta waan ka codsanayaa warqadda halkan idinku qoran aad la yaabantii waxa weeyaan dadka shop center-ka intee leeg buu qof ka bixiyaa ama intee leeg buu u ogol yahay salaano kale inta qof team bay ku xiran tahay waad arkaysaa cadadka haddii aad intaas tiin inta xaq u leedihiin shop center-ku ma diidi karo ee saalo dad badan waxa jira xaggan dhibaato ka haysato oo badan shop center u diidaan laakiin xaq ayaad u leedahay qof kaaga murmi kara male warqadda waad arkaysaan qof kaaga murmi kara male antaraaguna aad iyo aad buu muhiim yahay wakaas walaalayaal insha Allah taala ka faa'iideysta aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum